Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin soo video ku saabsan sida aad ciwaankaaga YouTube-ka secure ugu dhigi lahayd. Ama mid aan la jibi karin. Waad la socotaan maalmahan waxaa soo badanaya dad badan oo ka cabanaya YouTube-kayga ayaa la jabsaday ama YouTube-kayga ayaa la jabsaday. Marka waxaan idin tusayaa sida aad ugu hortagi lahaydeen dhibabkaas dhan. Ugu horreyn waxaan tegaynaa Gmail-kayga oo YouTube-ka igu xiran yahay. Hadda kan waxaan ku isticmaalaa oo kale tusaale YouTube-ka. Marka waxaan rabaa inaan YouTube-kayga secure ka dhigo. Dhanka kalena waxaan idinka tusayaa qaybta mobilkayga si aad ula socotaan tilaabooyinka aan sameynayo. Waxaa lagaa rabaa adigana intaadan tilaabadaas qaadan ugu horeyn ciwaanka inaad secure ka dhigtid aad rabtid waa in uu mobilkaaga ka furan yahay sida hadda aad u jeedaan aniga sidaas oo kale waxaa laga rabaa inuu smartphone-kaaga kugu xiran yahay. Marka meeshaas taagan tahay waxaad leedahay oo kaliya meeshaan calaamadan geeskan oo kale S ay ku qoran tahay oo kaleeto adiga ereyga markaas magacaaga ka bilaawdo oo kaleeto ayaa kugu qornaanayso. Waxaad dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay manage your account. Markaad meeshaas keli ku siiso wuxuu ku keenayaa meeshan. Marka anagana maanta waxaan u baahannahay oo kaliya cashirkeenana quseeya qaybtan security-ga. Intaas oo kaliya ayaan ugu baahannahay maanta. Haddii aan qaybtan keli ku siiyo wuxuu keenayaa meel sidan ah oo ku qoran tahay sign in to the Google. Marka waa u jeedaan meeshan waxaa ku qoran password-ka. Marka hadda anaga labadan dadka muhiimadda dadka ugu badan waxay isticmaalaan hadda ugu badan kana isticmaalaan 70% iska dheh kana isticmaalaan laakiin kan hoose qof isticmaasho way yar tahay. Marka kan haddii kan dadka isticmaalaan waa kan kalifay mararka qaarkood inay dhacdo in la dhaho si kedis ayaa yes ku dhahay ciwaankaygana sidaas la igala wareegay ama ilmahaaga oo kale ama ilmo yareero walaalaha qofkay ahaato mobilka ku dheelayo kaleeto haddii oo yes taas taabto oo qof isku dayay ciwaankaaga numberkaaga yaqaan xag ayuu ka bedeli karaa automatic ah. Marka aad u fududeeyay taas marka tan ayaan ka taxadaraynaa si aanan u dhicin. Ugu horeyn marka labadaba si aan ula socono active inaan ka dhigno waaye wuxuu ku weydiinayaa Gmail-kaaga gal waxaad leedahay next. Hadda meeshan ayaan taagannahay marka wuxuu leeyahay recovery phone ma haysatid oo leeyahay telefoon kuguma xirno waayo haddii aan geliyo meeshan wuxuu soo dirayaa code oo telefoonkan ayuu u soo dirayaa code-kina hadda marka wuxuu imaanayaa qaybtan oo mobilka ah haddii aan meeshan imaan waa u jeedin message-ka waxaa taagan code waa kana numberkan ugu dambeeya ayaa hadda la soo diray si aan u active gareynana waxaan gelinaynaa mobilka anagoon isticmaalayno waxaan gelinaynaa computerka code-kan waxa waaye 793531 waxaan leenahay verify aan leenahay hadda waa u jeedaan wax walba cagaar ayay noqdeen sidaan ay noqoto waxaan leedahay next yaa leedahay mar labaad wuxuu ku leeyahay gal ciwaankaaga hadda waaye waa kana marka aniga confirm aan leeyahay wuxuu ku weydiinaa ugu horeyn ciwaankaaga pin code-ka mobilkaaga ayuu ku weydiinayaa okay leedahay marka meesha soo dhaado meeshan ayay imaanaysaa waatana meesha dadka ka dacwoodaan oo kaleeto badana ay dhahaan sikadiis ayaa farta iiga dhacday waa qaybtan waaye qof kale ayaa isku dayaya ama qofka mobilkaaga xadaya ha noqdo wuxuu rabaa aada qof ayaa isku dayaya marka adoon ilmaha aadan ama adiga qofka haddii oo kedis yeestaan u taabto waxaad u fududeysa qofkaas inuu Gmail-kaaga la wareego automatic ah oo YouTube-kaaga wax walbo asiga la wareegayo waa isla hore second-kaas ciwaanka ayuu password-ka ka bedelayaa marka aniga waa yeestaan tan dadka dhib ku keenta marka aniga haddii aan yes dhaawaa ileen Gmail-ka computerkan ayaa isugaya inaan active gareeyo yes ayaan dhahay wax walba waa okay uu leeyahay marka turn on aan leeyahay marka sidaan dhaadin tan waa sii furanaysaa okay kabacdi back aan leeyahay waa kana hadda waxay noqotay blue ay noqotay marka tan oo two step-ka iidaan ah oo waa code lagu soo dirayo taas active gareynayna haddana waxaan leeyahay okay aan leeyahay mar walba wuxuu ku weydiinaa adiga miya qofkan yes hadaa dhaada haddana ku mobilka ka soo booda confirm hadaa dhaadid waa kana mar walba waxaana dadka dhibkadiisa haddii oo ilmo kaaga dhuftaan ama gacantaada qalad aa ugu dhacdid tan ayaa dadka dhib u keenta hadda mobil shaashadiisa mugdi la tahay wuxuu ku weydiinaa mobilka marka adiga samaysanaysid si aanan qof kaaga gelin pin code ayaa u samaysataa number 1 pin code kasoo ku weydiinaa inaa adiga tahay qofka kasoo xaqiijiya okay leedahay marka ugu horreeya samaynaysid waaye haddii haddana yes dhaho waxaan u gudbayaa qaybtii labaad haddana wuu ogolaaday marka sidan ayuu yahay u fura leeyahay yes haddana telefoonkan wuxuu kugu soo dirayaa adiga miya qofkan waxaa leedahay ha aan leedahay isla hore message ayaa ku soo dhacay shaashada haddii aan meeshan hoos mobilka aga jidan sakama gudahooda waa kana uu imaado
haddii aan hadda dhaho koodkaas geli waxaa waaye 2 eber 2 5 7 3 next ayaan leeyahay turn on aan leeyahay markaa sidaan meeshaan taagannahay oo keliya waxaa samaysay active ayaa ka dhigata hadda taleefankaaga wadana inta kugu soo qorayaa baagaad leedahay marka aad meeshaan joogto waa ujeedaan 2 step verification on ayuu ku yahay markaa meeshaan taagan tahay kan ayaa ku dhufanaysaa onka ku ah wuxuu ku weydiinayaa ciwaanka inaad mar walba gasho xaqiijin waaye wuxuu ka xaqiijinayaa inaad ciwaanka soo gasho marka meeshaan imaatid hoos ayaa usoo soconaysaa waxaan kilig kusoo siiyey meesha ay ku qornay 2 step verification meeshaan ayaa usoo degaysaa hoos ah waa ujeedaan waxaa ku qoran authentication ku qoran app meeshaan ayaa laga rabaa mobilka meesha laga set up garay meeshaan waayo oo securitygiisa aadka u adkeynaysid oo kadis iyo waxyaabahaas oo dhan ka hortagaya setup ayaan leenahay wuxuu ku weydiinaa mobilka aad waqti xaadirkaas isticmaalayso aniga android aan isticmaalaa next ayaan leeyahay markaa meeshaan taagan tahay wuxuu rabaa inaa appkan kilig ku siisid furtid markaa appkan furtid oo wuxuu kaa rabaa inaad dhahdid kabacdina wuxuu ku weydiinayaa scan mobilkaaga wejigiisa aa kor keentid sawir aa ugu qaadid oo kaa rabaa waa ujeedaad haddii aan sameeyo aan dhaho scan aan leeyahay wuu qaaday qaybtan waxaan leenahay next aan leenahay wuxuu ku yiri koodkan geli koodkan hadda ugu hooseeya automatic kaas ayaan gelinayaa sakamaa ka dhiman verify leedahay waa intaan oo keliya inaad samaysid si oo active kugu noqdaa markaa meeshaan taagan tahay okay meesha ugu muhiimsan inaa hadda xasuusana lagaa rabo waxay tahay bini aadan ayaa nahay trap codesko kale meeshaan ayaa keli ku leedahay waa ujeedaan meeshaan koodad badan ayaa kusoo qormay koodkaas waxaa samaynaysaa oo keliya meeshaan ay ku qoran tahay daal leedahay waa download gareeya hadda aniga waa ujeedaan hoos meeshaan waxaa kusoo qormay kan ayaan iska xirayaa koodka ayaa idin tusaya haddane koodka waa kana meeshaan ayuu soo istaagay waa nambaradan badan nambaradan habka loo isticmaalo waxay tahay lacala haddii aa u baahatid mobilkaaga lumo oo mobil cusub aa soo geshatid koodkan waa inaa meel fiican dhigataa meelaha documentiga kugu jiro waa inaa ku darsataa waa markaas wuxuu ku leeyahay gmailka geli appkana soo download garaysana inaa galaa rabaa leedahay appkan keenoo ku leeyahay koodkan 10 number waaye mid alla midkaa rabtid hal mar ku galaysaa mobilku ku active garayna kabacdi mobilkaaga haddana sida active kasii dhiganaysaa oo mar walba secure kuu sii noqonayo marka koodkan meel dhigta mar walba waa sidaas koodkana meel dhiganaysaa kabacdina dib ayaa u isticmaalaysaa mar walba u baahatid marka haddii aan hadda intaan inaad mar walba aad meeshaan akhrisid waa muhiim si aad ula socotid waxyaabaha qaaldan oo dhaco kaleeto meeshaan ayaa ka ogaanaysaa ay ku qoran tahay recent security event dadka meelaha ee qaar inay kasoo galaan isku dayaan waaye qofka wadan alla wadankaa joogta adoo mobilkaaga wata aa ka gashidna wuu kuu sheegayaa mar walbana adinka isku daya wiigi inaa mar fiirisiin meelaha la iskaga soo dayay ciwaankaaga in laga soo galo meeshaan ayaa kala soconaysaa videogan intaanan ka bixin waxaa rabaa inaan idin tuso waxyaabo yaryar aad dadka inay fahmaan muhiim ah tusaale ciwaankaaga sidee passwordkiisa ku adkeysan kartaa marka ugu horeeya haddii aa pagekan oo kale isticmaalaya hadda aa gashid fiirisid waxaa la passwordka lagu sameeyaa 16 eray inta sida u qoran tahay oo kaleeto aa u baahan tahay marka dhinacan waxaa idinka tusayaa sida passwordka ugu fiican ee ugu macquulsan loo sameeyo waayo passwordada ayaa kala ah dadka loo yaqaan hacker ee kombiyuutarada ama passwordada jabsada waxay isticmaalaan wax la dhahayo listi oo nambaro intaasoo millions eray ee kombiyuutar ku kaydsadeen passwordkaagana si fudud ku heli kara marka sida looga hortaga ayaa idin tusayaa waa ujeedaan waxyaabaha meeshaan saaran passwordkaaga intaan ka samayso ku leeyahay 16 haddii uu passwordkaaga 8 number ka koreeyo aad iyo aad uu secure u noqonaya laakiin waa haddii aad ku darto calaamadahan waxyaabahan oo kaleeto anigoo kale hadda cabdiraxmaan ayaa la yidhahaa tusaale dadka qaar oo kaleeto hadday rabaan magacooda ay ka dhex samaystaan laakiin ma wanaagsana tusaale ahaan haddii oo ereygan oo kaleeto cabdiraxmaan siidan kasoo qaaday iyo maan oo kale haddii inaan password inaan kan ka dhigta rabo waxaa muhiim ah inaad secure ka dhigto waa 4 number marka waxaa u baahan tahay inaad ka hormarisid calaamadan iyo calaamadan waa waxaa xifdi karta inay noqdaan sidaan oo kale ayaa ka hormarinaysaa calaamada dash oo kaleeto ayaa click siinaysaa intaa imaanaysaa tan underscore oo kale leedahay haddana waxaa leedahay haddana 1 kana 2 mar gelinaysaa markaa sidaas tiraahdid oo kaleeto
matalan eber ayaa ku daraysaa eber markaa ku darto hal calaamad oo sidaana ku daraysaa markaas waxaa ku daranaysaa 4 nambar oo kaleeto oo ah matalan 14 oo kale marka intaan oo kale markuu sidaan yahay ciwaankaaga waa test gareynaynaa ciwaankeena securitygiisa intuu u leeyahay passwordkiisa linkin kana soo kaciyay hadda meeshaan waxaan leenahay ciwaankan noo jeegin garay passwordkeena waa ka intara leedahay marka maxaa dhacay fiiri 100% ciwaankaaga secure waa lagu dhahay waayo kan oo kaleeto markaa sidaan u sameyso in la jabsado waxay ku qaadanaysaa time aad u fara badan sababtoo ah ciwaankaaga secure saan ka dhigtid laakiin haddaa ka dhigtid oo kaleeto matalan oo kaleeto magac yar oo fudud oo kale 4 nambar ah iyo nambar haddaa israacisid waa dhib badan tahay haddii aa magac dheer oo ka dhigtidna wuu fudud yahay marka isku day inaa ereyo waxyaabo saan aa isticmaashid marka ugu horeeya aa xifdisid intaadan passwordka bedelin marka sidaan oo kale isku daya insha allahu tacaala cashirkeenana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii aa videogan ka heshay pagekeena subscribe ku samee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu